بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan rabnaa in aan ka hadalno sheekheena taariikhdiisa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun fadlan ku soo dhawow channelka Quutaha Production haddii aad nagu cusub tahay waxa aan kaa codsanaynaa in aad subscribe na dhahdo leegna muuqaalka aad saarto haddii aad intaas samaysay walaal malaa'igtu ha ku jeclaato aad iyo aad baan u mahadsantahay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waa mid ka mid ah culimada iyo aqoon-yahanada iyo mufakkiriinta ugu saameynta badan guud ahaan geyiga Soomaalida xilligan casriga ah hadda waxaan rabnaa in aan ka hadalno Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun dhalashadiisii iyo caruurnimadiisii sheekhu wuxuu ku dhashay agagaarka magaalada Burco meel u dhow magaalada Burco ayuu sheekhu ku dhashay ee gobolka Togdheer wuxuuna dhashay sanadkii 1950 ilaa bilowgii 1960 sheekhu wuxuu ku soo koray miyiga iyo magaalada labadaba waa uu ku soo koray isagoo yaraantiisii bartay Qur'aanka Kariimka ah iyo cilmiga aasaasiga ah ee diinta Islaamka yaraantiisii wuxuu bartay Qur'aanka Kariimka iyo aasaaska cilmiga diinta Islaamka sida caadada u ahayd caruurteena Soomaaliyeed sida caadada u ah yaraantooda waxa ay bartaan Qur'aanka Kariimka iyo aasaaska diinta Islaamka haddana waxa guda galeena waxbarashadiisii Sheekh Mustafa wuxuu isku daray waxbarashadii diinta iyo tii maadiga labadiiba waa isku daray sheekhu hal mid kaliya kuma ekaan oo diintii bes kuma ekaane tii maadiga iyo tii diinta ahayd labadiiba waa isku daray oo waa uu wada bartay waxbarashadiisii maadiga ahayd baan rabnaa inaan sheekha ku hormarno waxbarashadiisii maadiga ahayd wuxuu waxbarashadiisii dugsigii sare uu ku soo qaatay magaalada Burco dugsiga caanka ah ee Sheekh Bashiir ama dugsiyadii farsamada dugsigiisii sare wuxuu ku soo qaatay magaalada Burco dugsiga la dhaho Sheekh Bashiir ama dugsiyadii farsamada ayuu ku soo qaatay dugsigiisii sare kadib wuxuu u soo gudbay caasimadii Muqdisho ayuu kadib u soo gudbay markuu dugsigii sare uu soo dhameeyay sheekhu wuxuu u soo gudbay caasimadii Muqdisho isagoo ku soo biiray jaamacadii ummadda Soomaaliyeed halkaas oo uu ka bartay cilmiga engineering ayuu ka bartay oo waaga wuxuu galay faculty-ga la dhaho electrical engineering cilmiga la dhaho ayuu bartay oo jaamacadda u galay sheekhu waxbarashadii diinta ahayd iyadana aan guda galno waxbarashadiisii diinta ahayd inta uu dugsiyada iyo jaamacadda uu ku jiray labadaba intuu iskoolka iyo dugsiyada iyo jaamacadda uu ku wada jiray kama uusan harin barashadii diinta waa uu watay tii diinta barashadii diintana waa uu watay wuxuu xalaqaad cilmiyeed u raacay culimadii waaweyneed ee Soomaaliyeed ee xilligaas joogtay Muqdisho iyo gobolada kaleba xalaqaad wuxuu raaci jiray culimadii Soomaaliyeed ee xilligaas joogtay wuxuu u raaci jiray xalaqaad buu raaci jiray Muqdisho dhexdeeda iyo gobolada kale u raaci jiray oo isku watay diintiisii iyo tii maadiga labadiiba waa isku watay haddana waxaan rabnaa in aan ka hadalno hijradiisii iyo noloshiisii dibadda ahayd kadib burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya 1991 Sheekh Mustafa wuxuu u haajiray dalka Norway ayuu u haajiray intii uu joogay qurbaha gaar ahaan dalka Norway wuxuu sii watay waxbarashadiisii isagoo si qoto dheer barashada culumta diinta u bartay iyo shariicadii iyo maamulkii u wada bartay ayuu waxbarashadiisii sii watay wuxuu noqday lafdhabarta jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Yurub ayuu sheekhu noqday wuxuu noqday lafdhabar jaaliyada Soomaaliyeed ee Yurub isagoo aasaasay ama wax ka aasaasay dhowr xarumood oo dacwadood iyo masaajidyo isagoo aasaasay hamaamuuska dacwadda iyo maxaa sifeynay labadiiba sheekhu wuxuu leeyahay Sheekh Mustafa wuxuu leeyahay hab dacwadeed ka duwan culimada kale ayuu leeyahay waana sababtoo u soo jiitay malaayiin dhalinyaro iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed
sababta uu malaayiinta dhalinyaro oo Soomaaliyeed u soo jiitay waxa weeye wuxuu leeyahay hab ka duwan culimada kale ayuu wax u akhriyaa ama wax u soo jeediyaa isku xirkiisii diinta iyo sayniska markaa wuxuu si aad ah u falanqeeyaa cilmiga casriga ah falsafada taariikhda adduunka iyo sidii loogu adeegi lahaa fahamka diinta ayuu si aad iyo aad u falanqeeyaa wacyigelintiisii bulshada khudbadihiisu kuma koobna oo kaliya arrimaha aakhiro khudbadihiisu kaliya kuma koobna arrimaha aakhiro badalkeed wuxuu si weyn uga hadlaa dhibaatooyinka qabyaaladda horumarka dhaqaalaha qisada qoyska barbaarinta ubadka iyo sidii qofka Soomaaliga u noqon lahaa mid isku kalsoon oo wax soo saar leh ayuu ka hadlaa wuxuu caan ku yahay inaanu ku dhex milmin khilaafaadka kooxaha diimeed ama xisbiyada siyaasadeed taasoo ka dhigtay in la wada ixtiraamo meel kasta uu tago kuma dhex milmo waxayna ka dhigtay midaasu meel kasta uu tago waxay ka dhigtay in la ixtiraamo ayay ka dhigtay habkaas doorkiisa maanta sheekhu hadda wuxuu inta badan degan yahay dalka gudihiisa ayuu hadda degan yahay Hargeysa iyo Burco labada ayuu dhaxeeyaa laakiin wuxuu safar dacwadeed oo istuba joogjoog ah ku kala bixiyaa dunida dacaladeeda geeska Afrika ayuu ku kala bixiyaa Soomaaliya Somaliland Puntland deegaanka Soomaalida Itoobiya Djibouti Kenya Yurub Waqooyiga Ameerika iyo Khaliijka ayuu intaas ku kala safraa si uu diinta u gaarsiiyo oo uu wacdigiisa khayrkiisa ugu soo jeediyo ayuu intaas oo magaalo intaas wadan ugu kala safraa wuxuu si joogto ah u qabtaa muxaadarooyin maqal iyo muuqaal ah oo ay malaayiin dad ah ka daawadaan baraha bulshada ayuu si joogto ah sheekhu u qabtaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil ilaaha ka raali noqday laguma tilmaami karo oo kaliya wadaad diinta akhriya laakiin waa mufakir macallin iyo dhiirigeliye bulsho oo door weyn ka qaatay toosinta iyo garaad korodhka faca cusub ee Soomaalida sheekha laguma tilmaami karo wadaad diinta akhriya kaliya laguma tilmaami karo waa aqoonyahan waa mufakir waa dhiirigeliye bulsho intaas oo dhan waa lagu tilmaami karaa sheekha waxaan rabnaa in aan ka hadalno aragtidiisa ku saabsan horumarka iyo dhaqaalaha waxaan u baahanahay hadda waxaan rabaa in aan hadda ka hadlo aragtidiisa ku saabsan horumarka iyo dhaqaalaha sheekhu si weyn ayuu xoog u saaraa in bulshada Soomaaliyeed ay ka baxdo saboolnimada ayuu si xoog u saaraa iyo ku tiirsanaanta kaalmada dibadda sheekhu xoog u saaraa inay ka baxdo saboolnimada iyo dalalka kale dibadda aan ku tiirsanahay in aan ka baxno ayuu xoog saaraa sheekhu wuxuu inta badan dhalinyarada ku dhiirigeliyaa inay bartaan xirfado gacanta ah ayuu ku dhiirigeliyaa xirfado gacanta ah iyo tiknoolajiyadda iyo ganacsiga halkii ay ka sugi lahaayeen shaqooyin dawladood sheekhu dhalinyarta ayuu wuxuu ku dhiirigeliyaa inay xirfado bartaan xirfado gacanta ah bartaan tiknoolajiyadda bartaan wax kasta oo ganacsiga ku saabsan ay bartaan ayuu ku dhiirigeliyaa si aan dalal kale aan u hoos fariisan ama dalal kale aan wax ugu sugin xooga ayuu saaraa oo wuxuu ka dhiirigeliyaa oo dadka ayuu u sheegaa wuxuu jeediyaa muxaadarooyin gaar ah oo ku saabsan nidaamka maaliyadeed ayuu jeediyaa ee islaamka isagoo dadka bara xigmadda ku jirta kaydsiga waxa la dhaho kaydka isagoo dadka bara ayuu muxaadarooyin jeediyaa maalgashiga saxda iyo ka fogaanshaha deynta xad-dhaafka ah uu ka hadla muxaadarooyinkiisa ku daa in deynta xad-dhaafka la iska dhaafo maalgashi la sameeyo kayd la sameeyo inta muxaadarooyinkiisa way ku jirtaa dhisidda qoyska iyo barbaarinta ubadka ayaan rabaa inaan ka hadlo sheekhu xagga wuxuu ka yiri mawduucyada ugu caansan Sheekh Mustafa laga dhageysto oo dhisidda iyo qoyska iyo barbaarinta ubadka waxa kamid ah doorka waalidka wax la dhaho wuxuu aad uga hadlaa in barbaarintu aysan ahayn kaliya quudin iyo dhar iibin ubadka
wuxuu aad uga hadlaa inaysan barbaarintu ahayn wax la dhaho quudin iyo dhar u iibin oo kaliya ayuu ka hadlaa badalkeedana ay tahay in ubadka lagu abuuro garaad anshax iyo imaansa quudin iyo dhar u iibin kaliya lama rabee waxa kaloo la rabaa anshaxii iyo akhlaaqdii iyo iimaankii waxa in guriga ilmaha lagu baro oo waalidku uu baraa la rabaa xuquuqda dumarku sheekhu wuxuu si adag u difaacaa xuquuqda dumarka ee dhinacyada waxbarashada ixtiraamka qoyska dhexdiisa isagoo ka hortaga caadooyinka hidaha dalka ee ka hormarinaya shareecada ayuu ka hortagaa sheekhu wuxuu kaloo sameeyaa la dagaalanka qabyaaladda iyo quursiga ayuu muxaadarooyinkiisa ku daraa wuxuu si aad ah u weeraraa cudurka qabyaaladda oo uu u arko caqabada ugu weyn wuxuu u arkaa cudurka ugu weyn qabyaaladda wuxuu u arkaa caqabada ugu weyn ee haysata dalkeena Soomaaliyeed qabyaaladdu inuu cudur yahay oo caqabada ugu weyn dalkeena haysata ayuu sheekhu u arkaa xagga caqabad inay tahay ugu weyn dalkeena haysata qabyaaladda cudurka qabyaaladda la dhaho ayuu sheekhu wuxuu u arkaa caqabad khudbadihiisa wuxuu ku celceliyaa in qofka lagu qiimeeyo aqoontiisa taqwadiisa iyo waxa uu bulshada ku soo kordhiyo ee aan lagu qiimeyn qabiilkiisa ee dadka ha lagu qiimeeyo aqoontiisa iyo taqwadiisa ha lagu qiimeeyo ayuu sheekhu dhowr jeer inta badan ku celceliyaa muxaadarooyinkiisa badanaa ku celceliyaa Sheekh Mustafa waa maktabad guureysa taam isku raacsanna Sheekh Mustafa inuu yahay maktabad guureysa soo isku raacsanin hadii aan isku raacsanahay like saar muuqaalka hadaa isku raacsanahay muuqaalka like saar Sheekh Mustafa waa maktabad guureysa wuxuu si xad dhaaf ah u akhriyaa buugaagta cilmiga nafsiga taariikhda sayniska iyo falsafada reer galbeedka iyo tan islaamkaba sheekhu wuu akhriyaa marka uu muxaadarada jeedinayo wuxuu dadka u soo xigtaa cilmi baarisyo caalami ah iyo tijaabooyin cilmiyadeed oo dhawaan dhacay taas oo ka dhigta khudbadihiisa kuwa la jaan qaadaya casriga mahmaayada iyo suugaanta Soomaaliyeed sheekhu inkasta uu yahay nin aqoon dheer u leh culuumta casriga wuxuu si aad ah u yaqaanaa sheekhu dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ayuu sheekhu si aad u yaqaanaa sheekhu kaliya ma yaqaan xagaasi xagana dhaqankii suugaanti uu kula yaqaanaa wuxuu muxaadarooyinkiisa ku qorxiyaa mahmahyada Soomaaliyeed iyo gabayadii hore sida kuwa Sayyid Maxamed Cabdulle Xasan ama abwaanadii kale oo ku soo daraa muxaadarooyinkiisa uu ku qorxiyaa gabayadii Sayyid Maxamed Cabdulle Xasan iyo abwaanin kaleba uu ku soo daraa si uu fariinta ugu dhaweeyo maanka dadka reer miyiga iyo reer magaal ahba macna sababtu gabayadan ugu soo qaadanay mahmaayadan suugaanta Soomaali u soo qaadanay waxa weeye si uu dadka ugu dhaweeyo dhagahooda dadka miyiga ah iyo dadka magaaladaba si isku mid u wada maqlaan hadalkiisa u wada fahmaan labada jeeb suugaanti dhaqankii hore dhaqankiina uu wataa dhankii casriga ahaana waa wataa sheekha ilaaha noo daayo ilaaha noo xafido sheekheena Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun wax badan baa ka baranay waa aqoon guureysa oo maktabad guureysa sheekheena cilmiga amaantii aan ka baranay lama soo koobi karo hadii maanta aan dhaho sheekh Mustafa taariikhdiisa ka hadlaya waxay noqonaysaa in intaas oo jeer oo maalin intaas oo bilo ah ka hadlo marka sheekha lama soo koobi karo taariikhdiisa meelo badan buu tagay waxyaabo badan buu ka hadlay sheekheena laakiin warka waxa inta kooban ah sheekh maanta ka hay intaas ku soo koobaya sheekh waxa leenahay sheekh guuleyso ilaaha noo ka daayo waxaana barto wax walba oo diinta islaamka ku saabsan adigana baray sheekheena fariintaadu aan soo gaarsiisay anaguna waxa noqonaynaa dadkii ku dhaqamo oo dhanka diinta islaamka ah iska dhisa oo dhanka diinta islaamka aan laga soo marin baa noqonaynaa idinkana fadlan walaalayaal waxa ku mahadsantiin daawashadiina iyo muuqaalka sa u daawateen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin intaas ku soo gabagabeynaya subscribe hadaan dhihna waxa ku xasuusinayaa subscribe channelka